beelo walaalaha ayaa dagaal ku dhex maray deegaanka Ceelaf Weyn arrintaas oo la leeyahay xukuumaddu sibay uga gaabisay xildhibaan Axmed Diiriye Nacnac oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada ayaa hadda barbarkayga taagan ugu horeyn dagaalkaas soo noqonaya dagaal beeleedka walaalaha ayaa halka ku dhex maray sidaad u aragtay dhimashan u arkaa waa dadkeena walaalaha intaas soo goor isku soo duulay ee waxba laga qaban ee Sheekh Shariif bal isku watagay ee agreement loo kala saxay ee handina istilaya waanu yaabsanahay ilaahu naga qabo baan leenahay wadankeena hadii kale wadankeeniba waxa ka baqayno xagga bari ka soo laga soo gubo waaye mudane in dadka si u dhaliilsan ee wasaaradda arrimaha guduhu way ka gaabisay gaar ahaan farta si ugu fiiqayo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed aduu sidaamiyaad u aragtay siyaasi ka badan ma arkaa wuu ka gaabinaya wuu og yahay wayn madaxweynuhu wax ka qabtaa oo ninkan wax ka qabtaa oo haduu nabadgeliyay wadanka waxba ka qaban waayay wasiir dakhli yahay waliba reerkiisa qaban waayay wax laga qabtaa waxa la yiri reerka bilaabaha la soo qabto lama qabanayo marka muxuu ka wasiir ka yahay xilka hal laga qaado leeno degdeg hal lagu qaado nin aan labada reer ahayn haloo dhiibo baan leen boqolaal baa jooga ku mujaahinti baa jooga mujaahid baa jooga askar oo waxaan yaqaan oo aan labada qolob ahayn marka waxaan leenahay hal laga qaado xilka hal laga qaado oo nin aan labada reer bahayn haloo dhiibo oo u naxayn labada reer kii qalad sameey u naxayn ba haloo dhiibo baan leen fariin waxaan leenahay iscasil wasiirka dakhliga Maxamed Kaahin waxaan leenahay meeshii haddaad ka bixi kari weyday iscasil wala iscasila ingiriiska nin baa kelmad yiraahdo kelmadaas xumaato wala iscasila maxaa waxaynu ku dhajinayay iscasil baan leenahay dad wadanka inuu aad nabad iyo wanaag ka doonayso iscasil baan leenahay reer meel si jooga la maray oo reer kala maray wala garanay maxaa loo suuqa qaban waay wadaashiis maxaa loo suuqa qaban waay maxaa la baqal loo geyn waay maxaa loo dhiibi waay iscasil baan leenahay iscasil oo meeshana hadaan bariga hor baarlamaanku diiday in emergency ma waxaan leenahay xaalad dawaar laga dhigo lixdaba hal hooyay dadku hal hooyay inta wax laga adigu waxaad kamid ahayd mudanayaashii madaxweynaha Soomaaliland markuu xaaladda halkan arkay ee uu hore badda ugu soo rogay diiday maxaad maanta ogolay marka bandogaas aan ogolay madaxweynaha saar way reerkaas waxaan ka baqanay meeshaas in Soomaaliland ka baabadaan ka baqanayna imika waxa la caara soo duulay meena ceeb inagu hayn ciidankeena mee dadkeena waxaan leenahay bandooda saar oo ninkan wasiirkana wasiir kale oo khayr qaba oo aan ka baqayn labada meedna aan ka baqayn ilaahay ka baqaya wasiirka ma laga yaabaa inaad golaha uga yeedhaan wallo yeeri ha Batri Koosar Maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa